dad baa dee garanaysaa run iyo been waxay doonto waxaan noqotay qaadaa dhigaya bal dadkaasi sababtay u qaadaa dhigayaan iyo waxaan waxa uu yahay binu doonaynaa inaan yara la fagurno anaguna aragti baan wada idinkana aragti way idigu jirta waxayna yar baan isku geegeynayna السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب غالقة no أنتم حي قصلته ما حلو حلو من فربة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعا وناكسة وضي القضية دي بدمير كستادو كده على دي ساعات كنشوكتان وهجاج ومركل أيه ولكن هلا برعوا بله إيه مركل أيه دلها عندنا ده دي نقول عصبتاي نقول دواد ونقبل من ضغطه وهجاج أنت أصلا ده كلي caawimaadaan idiga baahnay subscribe saarteen moogti kulli qof kasta oo doonaya magac yeesho heer gaaro garanaysaa dadka wax ku soo kordhiyo dadka fikirkiisa aragtiisa la wadaago magaranaysaa cid uu wax la wadaagayo iyo cid uu doonayo magac inuu ku dhax yeesho waa inuu isweydiiyaa waayo waa dadkaaga marka anigu intaaba inaan yeeshaan doonaya dadkayga wax ku dhax noqdo Soomaa marka yaan caawimaad uga baahanahay idinka waay Soomaa ama idinka weey marka boowaya hunaya walaalaya soo dhawaada sharka subscribe saarta igu caawiya kambalaalkana kaga yeedhiyadii ma garateen waa hagaag warkii hore war soo dhaafiyay waxbay sheegayeen talo muxuu ahaa waxaan maanta idii wada waa falanqayn ban maanta wada falanqayn ma reaction falanqayn maxaynu falanqaynaynaa waxaynu falanqaynaynaa arrin media haysata oo media qabsatay dad badan waxa laga yaabaa cawlo maxaa ku geeyay anu kuma jiro laakiin way jirtaa dad baa dee garanaysaa run iyo been waxay doonto waxaan noqotay qaadaa dhigaya bal dadkaasi sababtay u qaadaa dhigayaan iyo waxaan waxa uu yahay binu doonaynaa inaan yara la fagurno anaguna aragti baan wada idinkana aragti way idigu jirta waxayna yar baan isku geegeynayna waa walaasheen Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani oo hawshooda lagu raftay laakiin warkii inta Qamar Suugaani laga yimi baa imika waxa ay saarantay diiradu oo dadkii ku dul hawdeen ay ku dul haabanayaan calaashan ay dul taagan yihiin Ugbaad Aragsan oo la leeyahay markanay guursatay oo laba wiil midna mushiishan yahay midna saan maqlay uu yahay fanaan la leeyahay waa kan iyo kan waana ogtiin oo ayadii Qamar Suugaani hawshu ha socoto bal sababta hadaba asxaabtii markii ay arkeen sawirkaad u jeedaan way ee agtiina yaal si fiican baad arkaysaa waxa ay tiri habeen wacan wax kale kuma soo dhigin dadka qaar waxay yiraahdeen moodayga cusbaaba jacaylka cusbaaba makan kala dadka qaarna waaba ii soo dirnoo xabay taagay way isguursadeeno waa la iskugu tumayba saabka loo tumay horta waa mid waxa ay tahay Ugbaad Aragsan waa ina fanaanada waa gabar Soomaaliyeed waa ina Soomaaliyeed waa fanaanad Soomaaliyeed waa inan inaga mudan inaynu xaq dhowrno in karaameyno in sharafno dhamaan hablaha Soomaaliyeed mid fanaanad ah iyo mid aan fanaanad ah iyo mid magac leh iyo mid aan magac lahayn mid kasta waxa qurux badan inaynu sharafno inaynu karaameyno kulli de rag baynu nahay dadku magaca guud iyo dusha waa ka sameeyay balse damiirada dadku way ku kala duwan yihiin waana la kala naxariis badan yahay waana la kala sharaf jecel yahay waana la kala xumaan jecel si kasto ay ahaataba warkan anigu waxaan aaminsanahay inaan ahayn war jira haddii xitaa Qamar Suugaani iyo Ugbaad Aragsan ay kala tageen even ma hada markiiba dhaqab mid la iskuma boodo la iskama meesadee dad islaameen nahayo inanku marka ay kala tagaan waxa jira diiniyan weydiinta laga xishoodo maad waa qasab waa diiniyan in qofku aadad baxo waqti uu qaato waqti kadib dadna guursado laakiin Qamar Suugaani bay markay isfuraan islaam markana mid kale iskuursadeen aqliga ma galayso inta sharafteedana dhawra sharafteedana ilaaliya talabaad qofka Instagram-kiisa ama meeliisa u khaaska inta aad gasho aad wax kala soo degto oo been abuur ka samayso oo qoraaladiisa xitaa waxaan ahayn aad ku soo dardarto waa ayaan dareynteeda leeg baan leeyahay taasina ilaa ma qurux badna dad badani waxa ay sheegayaan ama dad badan aniga laftigayga ii sheegeen ay xaqiijiyeen oo si daniyada oo dhaba iga dhigeen in kala tageen baa haddii kala tageena in la iskuursanay Ilaahay baa baneeyay in la kala tagana Allah baneeyay anagu markii iskuursanayna anagu iskumaanu guurin markii israacayeen anagu ismaanu raacin imkii kala tageen anagu maanu kala geynin ma garateen mid labaadna qofka taa wuxuu ka waranayaa waba fanaaniin baba amal laga dhigtayba wadiga waa reaction ka bixiyay fanaan hebel fanaanada miyuu furay fanaanada imka miyuu qaba
habeen dhaweyd baan arkay guriga uu iimanayay soo guriga maadaama gurigiisa ay magaada darka anaga ma inta aga soo istaaga fanaan hebel oo gurigiisa inta markaa ana reaction ka soo bixiya miya waxyaabahaas kale oo bahdilaad weeye sharafta weeye in qoys iyo bilaadan media la keeno kadibna sidii la doono loo qaada dhigo aad baan u dhaliilay aad baan farxumo u tahay waana arrin aan ka soo horjeedaan shakhsi ahaantayda qofna ma jecla family-giisa gurigiisa qoyskiisa in laga sheekeeyo fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed wuxuu fanaanku yahay fankiisa qof kasta waxa uu wax ku dhaxyay dadkiisa Soomaa wax buu dadkiisa u qaabilsay waxa uu dadkiisa u qaabilsay hadii uu wanaagsan tahay ku taada waa qofku wasadaysan waxa uu sameeyaa ama waa siyaasi ama waa fanaan ama waa abwaannimo si kor u sii qaaday ku boogaadi ama abwaan weeyano sidoo abwaan fiican oo haabu qabyaalad iyo qabyaaladaas sameeyo hoos buu dhaco dhaliil shaqadiisa ku dhaliil kartaa qofku waxyaabaha uu bulshada u qaabilsan yahay hadii uu hoos u dhac ku keeno ama isagoo si wanaagsan wuxuu waday ay ka jiifsato ama dhiiri geliyo wax ku tada wararkaaga hore ku soo noqo ama dhaliil oo aad ku tiraahdaa waad qaldantahay saad iyo si u dhowtoona matiid ku dhaqofki laakiinse ma qurux badna qofka waxyaabaha uu bulshada u qaabilsanaa intaad ka tagto in noloshiisa xasaasiga ah ee gudihiisa aad soo fafadho ma qurux badna ugbad arag sanaynsa lagu sameeyo ama saa loo dhaqmo ma qurux badna mana wanaagsana waa inanteeni wana Soomaaliyeed wana fanaanad Soomaaliyeed aad iyo baan u boogaadinaya runtii meel kasta ay joogto kullay qofka caanki inuu xamilaa qurux badan waxyaabaha ku dhax uu kala kulmayo bulshadiisa iyo shacabka iyo bulshaduna marka ay arkaan laba qof oo media isku dhaxaysta way la kala saftaan hal la kala safanina eeg aniga daawadayaasha ay daawada aad buu qiimo badan waan arkay rayo badan oo soo gudbiyay oo adiideen tirada cawil waxaas ma jirto laakiin ma ciidan ku tirada warkaasi war jira maaha ee warkaas sidaa weeye bad ku taasi wanaagsan bad ila hadasha waxaan jeclaan lahaa cid kasta iyo channel kasta dadka ku xiran in ay sida quruxda badan dadka wax soo gudbinaya hadii ay beentay ama ay qalatay ama ay waxa uu soo wada ayna fiicnayn waa inuu qofkii aflagaadin oo caay oo yiraahdo walaal muuqaalkaagan ama warbixintaadani ma saxsana waxaas ku qaldantay waa muuqaalkaagan iyo aragtidaadan iyo fikirkan aad keentay way saxsan tahay waana garowsanay hore ugu soco wanaad sidaad marka hore u dhiiti gelinaysan marka uu qaldamana aad runtii wax ugu sheegtaa laakiin caayda iyo aflagaadada idinku joojiya waa in yar baad daacaytanta aniga boqolkiiba 95 waa dad dhiiri geliyo oo amaana boqolkiiba 5 bay caayda boqolkiiba 5 ay caaydan waxa ka badan boqolkiiba 95 ka ay amaanaya ay jecel baaba qarinayaba marka chance aan ku arkaba qof caayaya maba jiraba sababtoo waxaaba iga badan oo mashquuliyayba oo ku mashquulsanahayba jacaylka dadka ay jecel oo iga tanbatay ma sha Allah soo batay leeyahay aniguna waan ugu soo badanaya ilaa kun cawil baan noqonay ha socoto waad yaad baa maasada asxaabta qaaliga gudiga dibad meel kasta adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan kullay waxa laga yaabaa qaar badan yiraahdaan maxaad uga hadlaysaa maxaad san oranaysaa oo dad weerareen waana dad caana waana dad magac iyo maamuus bulshada ku dhaxle waana dad laga been abuuranayo waana inaan laga been abuuranayo siibahanba u badaragsan marka waxaan leeyahay been abuurka inuu joojino hay sharafta ina tanayno dhowrno inaga shakhsiyanka ina sharafteen aynu dhowrano way inoo koronti dambe iyo isma qal dambe oo xiisa leh iyo muuqaalkan ku xiga oo ka xiisa badan. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you.
Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare. Thanks. Please subscribe channel kusoo channelka like tana nagu dhiirigeli share kare.